Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa soo bandhigtay maaliyaddeeda saddexaad oo ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20. Kooxda Barcelona ee ka dheesha horyaalka La Liga ee dalka Spain ayaa maanta soo bandhigtay maaliyaddeeda saddexaad oo ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub. Barca waxay maanta shaacisay maaliyaddeeda saddexaad ee ku dheeli doonto fasal ciyaareedka cusub ee 2019-20. Labiskan cusub ee kooxda Barcelona ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub waxaa farsameysay shirkadda qalabka isboortiska ee NEC. Soo bandhigistan maaliyaddan cusub Barcelona waxaa ka qayb qaatay Gerard Piqué, Firpo iyo kuwa kale. Kooxda ka arimaysa garoonka Camp Nou ayaa hore u soo bandhigtay maaliyaddeeda Milan iyo marti ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub 2019-20.